الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عن ونكسن سودو هذا صاحب يال شيخ شريف واركتان وهالله maxaa iyaa ag taagan ninka ag taagan oo sidii dhagolku u turjumaya arrin adag baa maanta inaan bixiyo waa fariin adag arrinkan Sheikh Sharif mid baan leeyahay Xasan Dhagolna mid baan leeyahay turjumaankaanu waa Xasan Dhagol qof Dhagol ah dadka badid hadaladiisa iyo waxa uu sheegayo ma yaqaanaano waa isku murqacdaan markay isku hor yimaadaan way tilmaanta oo bixinaya Dhagolku qof shakhsi oo la dhaqamay ba yaqaan dadka badid ma yaqaana in looga turjumo moogi horta Sheikh Sharif uu cadeeyay laba waxyaabood bay saddex waxyaabood buu cadeeyay lambar 1 garguurte iyo kooxdiisa in Dhagol isugu soo ururtay wuxuu markaysa sharciyad lahayn oo wax sharciyo la yiraahdo ay jirin kama duwana Dhagol Xasan Sheikh Maxamuud Xasan garguurte waxa hadda uu isku maaweelinayo oo uu leeyahay dawlad waliba dadku badan ay leeyihiin dawladda federaalka ay isaga hayaan anigu waa garan lahaa dadku dhan baa waxa iskugu soo urureen marka dadka Soomaaliyeed waxa isugu soo urureen marka aad si fiirso asi eegto dadaan aad wax u baran ama diini baran ama maadi baran oo aan sharciga aqooni waayo fiiri anaga Soomaali markaan nahay anigu ma soo gaarin dawladdii Maxamed Siyaad Barre anigu ma soo gaarin waa yara markay burburtay waa joogay laakiin ilma yar baan ahaa sharcigii iyo kala dambeyntii iyo nidaamkii ma soo gaarin oo dawladdaas isaynkeedii iyo quruxdeedii iyo sideedii iyo sharcigeedii iyo kala dambeynteedii kama qayb qaadan dadka Soomaaliyeed marka saddex bay u qaybsan yihiin dad wadanka waa isaga tageen waa ka hajireen oo dadka sharci yaqaanka ah oo waxay og yihiin markii sharciyad la waayo in dhibaato imaanayso waa ka tageen marka dadna mooryaantii markaas dee aan wax baran la qofku markuu wax barto oo waxaan og yahay waxa ay tahay inuu burburiyo iska haleeyo way wax barashadaada fiiri hada wax barasho waxaad baratay diinta meel fiican baad ka gaartay maadigana meel fiican baad ka gaartay waa isku kaabayaan waxaad samaynaysaa diintiina meel bay kaaga furantahay alxamdulillaah rabbil caalamiin oo waa taqaanaa waad ku dhaqmaysaa oo dadka ku maamulaysaa oo diinteenu waa nasteexo maadigiina waa ku shaqaysanaysaa waa laba wanaagsan oo ku furan weey marka qofka inta oo shaqada haysta marka qof kuma ciyaariyo waxbarashadiisii iyo shaqadiisii ku ciyaari maayo qofka daarta shaqada ku ciyaarayo shaqada dhibaatay waa qof waxa baran weey diin yimaad mid baran oo jaahil ah weey daarta qof shaqada ku ciyaara ama qof shaqada ka caajisa waxyaalahaas oo dhaqada aragto waa qofka aan waxba baran okay marka waxa haray marka oo dalkii qabsaday dadkii aan waxba baran oo jaahiliinta ah oo dalka iyo dadka lagu ilaalinayay baa qabsaday okay marka kuwii sharci diiniyana ma baran kuwa maadiyana ma baran waa kuwa hata kuraasta noogu fadhiya oo madaxda noo ah waxa dhacay marka waxay ka faa'iideysteen burburkii bay ka faa'iideysteen oo hanti ka tabcadeen marka sharciyad in loo sameeyo oo dalku sharciyad yeesho oo kala dambeyn yeesho ma ogola asagii baana haysta wadankii waxa dhacday marka dadna waa dadkii yaryara aniga jiilkayga ahaa oo soo kacay maxaan ku soo kacnay dal burburay baabay shacab is ceyrsanaya dhiig daadanaya ba iyo hoog baan ku soo barbaarna waxaan isku daynay oo aan fakarnay waxaanu inaysan ahayn wax wanaagsan waxa sameeyay ay tuugan yihiin tuugadaanu ay ku hana qaadeen ku ilmo dhaleen ku koreen burburkii hantidii ummadda dhaqaalihii mana dhigayaan anaga marka meel aan kaalin aan ka galno waa laanahay waa booskaas waa naga xirey wali wixii baa taagan
caasimadii oo qoys sheeganayo leeyahay annaga iskale dhibaatada ugu weyn oo isaadka oo taagan oo laga maarmaanka ay tahay in laga taqaluso ama lagu kala tago ila tanaasul ma jiro caasimadii la isku tanaasulo oo leeyahay waxa caasimadii ummadda ka dhaxaysay dad baa sheeganaya marka dhibaatada u daawan caqabada taagan waa caasimadda sheegashadeeda qoys sheeganayo oo qabiil sheeganayo leeyahay annaga iskale mardaba caasimadii qabiil sheeganayo ummadana laha Soomaaliyeedna waa ka dhaxaysaa waxay noqonaysaa marka waa caqabada ugu foolsho xun oo ugu taagan weey meesha burburka ka yimid oo dhibaatada ka dhacdayna oo dalku ka burburayna caasimadii ahay okay marka saakay Sheekh Shariif wuxuu yiri caqabad baa taagan caqabada uu ogyahay uu ka warqaba wuuna kula socdo horay buu kula socdo qayb kamid ah badan waxay hada Sheekh Shariif annaga iska kaaya dhigin nin ma taqaan waxa soo dhan musallif ka ama musallim ka waxa weeyaan Sheekh Shariif laba waxyaabo saddex waxyaabood bas ka soo bandhigtay in xilliga ay waxa jira ay tahay dhagool xasan Sheekh dowladda uu sheegay in dhagool tahay hada dhagool uu yaa ka turjumay dadku ma ku wada yaqaan ma ka turjumay kama garan kara farta u socoto waa maya labo in ciidamadii la burburiyay inta hartayna aan dhaqaale loo hayn oo dhaqaale la jarnayo saddex in wax dawladnimo la yiraahdo magaceed ama raadkeed ay soo socon saddexdaas sheegtay marka turjumaankan hadda taagan oo faraafiq fiiqaya waxa uu ka turjumaya oo taagan yahay dhagool in noqday xasan Sheekh xasan garguurti oo way dhagool uu yaa ka turjumi yaa ku afiiqana waxa afiiqana dhagool dad la tacaamulay oo maxay kula tacaamuleen ama la dhashay oo yaqaan isla barbaareen oo dadka familkiisa ahu qofka dhagoolka markay isla barbaaraan uu garanaya ma ogta wuxuu rabo waxa uu sheegayo waxa uu ka camanayo waxa uu doonayo meesha uu socdo iyo waxa loo dirayo dadka oo markay ma wada yaqaanaan waa isku qarimaan waa isku wareeraan dadka aan dhagoolka aqoonin af Soomaaligiis xasan Sheekh marka dhagool baad soo garguurti Sheekh Shariif marka nooga turjun adiga asaga isku family dadka uu turjun wiilka hadda faraha uu fiiqaayo xaqi nabadda iyo waxa ka ashay dhagoolka waxa uu dabacsan yahay waa garguurtay ka turjun ayadana alaanu dhagool meel u raacna ma naqaano waxa uu sheegay ma naqaano ma af Soomaali naqaano isma far naqaano waa isku qireenoo isku qaribana dadka Soomaali hadda waa ku qariban waa isku qariban yihiin hadda garguurtay dalkii waa isku qariban yihiin dawlad kama jirto sharciyadu ma jirto aqli ma jiro kala dambeyn ma leh waa dhibaato caqabad baa socota shacabkii waa la leynayaa maxaa ku jirta burbur baa socda hadda waaye marka caqabadii 80% waad ka qayb qaadatay oo saddex waxyaabood oo ku hadashay baa taala siyaad baraan ka erinay suma wallahi maalinta lahayd Abdullahi Yusuf baan ka erinay farmaajo hadda ka erinayna waa taariikh ku qoran Sheekh Shariif wax la weeyo ama wax la aasay ma aha waa wax taagan weey waxyaalaha burburka keenaya waxyaalaha dhibaatada keenaya markii la rabo in laga baxo hadii adigu madaxweynaha soo noqoto dalka ka soo noqoto waxaan ku hadlayay suma wallahi iskaashiri koodi ragii riday baan nahay 2012 hala 2000 حالوي تون لو كريو لحم سيدي حلي عبد الله يوسف رجع عايشي بان هاي حتى لو عيرنا فرماجو نيكو كاي با لو كوني كوي لاتنكي لو كوني لاتنكي ميلها سيحيد ما مولينيا وياي شيخ شريف مركا مش بيو ku joogan waan qana xagga wadanimada iyo xagga dawladnimada iyo xagga Soomaalinimada kuma joogto xagga qabiilnimada ku joogta baash anaga waxa yaan qabiil suuqay dadin waxa yaan qabiil anaga shaar noo soo qaadan marna aw seekay dhigay dawlad marna aw qabiil seekay dhigay laba shaatiraas anagu shuqur kuma lihin hadaba waa idin sheeg caasubada sheeganaysan qaata dhagoolkiina adunka iskaga turjuma isla dawladeeye halkaas ka baxayna nabadii ma salaam waxba isku kuma nimaadno soo dawladdu ma ahayn qabiil soo 91 miina ridin soo tii Abdullahi Yusuf miina ridin 2008 soo farmaajo ma ay waxa sumo wallahi ku haysa 2021
هذا ريال واسبت قلنا أنا واحد دقول على مشقين كرنو دقول أنا ولا مشقين كرنو وحلا شقين كرنا ضد قبا وحمقرية هدي دقول نقطتين oo ay saaka farafiiq baasho marayso hadda adinku isku turjuma anaga noo soo gudbinina baasha dhagaala naga duu kishashkaas dhagaala oo afkii futada ka xiran adeerna dhaafsi ana hadda kule hanoo keenin kuwa shuquliin inuu dooni mayno no kala xiran albaabada dalku meel xum uu maraya dalka meeshaad geysay uu maraya sheekh shariif alla anaga wadana haysa ka yadhin waxba wadana haysa ka yadhin تاريخ ما كان قرن شيخ شريف تاريخ ما كان قرن تاريخ قبوبين دمانين با قرن انت الصومالي شوكتو واحد كو هذا الشيء بعطالله هداد مزول تهي كما هذا الشيء سقاشي كوي بإرين هلكا يا اسكاله هلكا يا اسكاله هلكا يا اسكاله هلكا هاي معلوم مقدشيري ضل يضل نقطه يدورد هذا كو شقين كرنو هذا نواب يسبدشي بباشو نقول بمريسا هذا نقولشي إن كترجمة إسلام قاطع إسلام ميرايستا هلا كلا بح أنا وراك أسكب بحنا نبدي مع سلام تولد بأن أنا ندي سنين وأنا الصومالي أنا أسكو أهين وأنا أسكو يصير أهين أنا سكاش نكون سمو ببرندولد ها دولدهم بقوا عادي ونظام ولا يسمين جديدين لما دولدهم بطلع دارودين إني كانوا وقتي عبد الله يوسف يتي فرماجو هذا بهوش إني واتقدر ونقنيسا أنا حتى إن الله سمو والله إن أنا دبتم أيسن باشاس إيمانه كل أنا قطتك أنا كتير وأنا قامينيو حمر إني سعاس من دقني إن أنا أودي حمر إني عاس من دقته إلا هرت اللي هشيو إلا وحي سجاشني يكود دعي الله حسابتمو بالقدي يروكي يجريه لا بالقيستي إلا بناك الصادق وحي أرت أنت هنتدي أرت إلا بناك الصادق سي حمر دول أسكو كنا كرنا سي سوي ما كرنا أنا جاب أنا لفت كنا قيبة نقول نقولشلا قيبة نقول هم نقولشلا وواحد فاهمين هذا لكن تصمد عيسو تبدأ موضوع ميسو هالكاس وعسلا سايس كله ترجميسان أدي كيني تاشا أنا وجدي باينك أنا وارك جور وهرا عروك شقي باشان دارود باي جديدا أبي وصو مري أيها جديدا وهرا عروك شقي وعم كل الباب أنك الحرم هل سنة كليا أهتي عيد الله باهي مرك حلا برتي لكن دارود باي جديدي هو أرنكاس يقدر عليه ولا ما يحاول نقدر يقول وحاول سجاش نكوي سوماي وحده أطلق على ها حد دير بأنك أنا وطق منايا الباب أنك الحرم عندنا نبدي مع السلامة مالك يقدر قلت له دور طبعا الباب كنوك الحرم هذا ركبة شو سياسيين حمر كذبوا وريقي وأنا دولة نقول أقوم منه وما نصعنا والسلام عليكم ورحمة الله.